Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Daawadayaal mar labaad kusoo dhawaada channelkeena Monomad. Waxaan maanta idin hayaa qaybtii labaad ee taariikhdii dagaalkii labaad ee adduunka. Waa taxanaynu kaga sheekeynayna dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa dagaalkii labaad ee adduunka. Daawasho wacan. Furinta galbeed 1940 ilaa 1941. Sagaalkii bishii afraad 1940 dowladda Jarmalka ayaa si wada jir dhinacna u weerartay dalka Norway, dhinaca kalena qabsatay waddanka Denmark. Sidaasina waxaa si dhab ugu bilowday dagaalkii labaad ee dunida. Taariikhdu markay ku beegnayd 10kii bishii shanaad ee isla sanadkaas, dowladda Jarmalku waxay dhulka la sintay ama ay xaaqday ciidamadii dowladda Belgiumka iyo kuwii Netherland ama Holland. waxayna labadaasi dal kaga gacan sarreysay dagaalkii la magac baxay Blitzkrieg oo ah kelmad Jarmal ah micnaheeduna noqonayo dagaalkii hilaaca. Isla 3 maalmood kadib markii Jarmalku cagta mariyay wadamada Belgiumka iyo Netherland, ciidamadii Hitler ayaa ka gudbay webiga la yiraahdo Meuse River. Webigan ayaa mid ka mid ah kuwa la isaga gudbo qaaradda Yurub, marana wadamo ay ka mid yihiin Belgiumka iyo Faransiiska. Markii ciidamadii Hitler ay ka gudbeen webiga, waxay weerar ku ekeysiyeen ciidamadii Faransiiska ee ku sugnaa Sedan oo ku taala dhinaca waqooyiga shishe ee Maginot Line, oo ah dhisme ciidanka Faransiisku dagaalkii koowaad markuu dhamaaday ay ka dhisteen dhinaca uu xadka kala wadaago Jarmalka. Dhismahan oo ciidanka Faransiisku u arkayay xadka kaliya in ciidanka Jarmalku ka soo gudbi karin, ayaa waxaa beeniyay arrinkaasi ciidamadii xoogga badnaa ee Jarmalka ee uu hogaaminayay hogaamiyihii mayalka adkaa ee Adolf Hitler, kuwaasi oo ku soo weeraray gidaarkaasi taangiyo iyo diyaarado, sidaasina ku jebiyay gidaarkii Maginot Line, kana dhigay midaan waxtar lahayn, isla markaana gudaha u galay dalweynihii Faransiiska. Weerarkan ciidanka Jarmalku Faransiiska kaga soo qaaday dhinaca waqooyi ayaa kala goysay ama wadada ka xidhay in ciidamadii Ingiriisku u soo gurmadaan Faransiiska. Dabayaaqadii bishii shanaad waxaa isla markiiba ciidamadii socdaalka ee Ingiriiska badda lagaga soo daadgureeyay dhinaca waqooyi, iyagoo badda ka soo galayay tuulada la yiraahdo Dunkirk. Isla waqtigaasi dhinaca koonfurta, Faransiiska ayaa ciidamadiisii sameeyeen iska caabin ay kaga hortagayeen ciidanka Jarmalka ee uu hogaaminayay Hitler. Iska caabintaasina waxay noqotay mid ay ciidanka Faransiiska ku halaagmeen. Marka xaalku halkaasi marayo, ciidankii dowladda Faransiiskuna qarka u saaran yahay inuu burburo gabi ahaanba, kaligii taliyihii fashiiska ahaa ee waddanka Italy waqtigaasi ka talinayay ee Benito Mussolini ayaa isbahaysi la samaystay hogaamiyihii ciidanka Jarmalka ee Adolf Hitler. Isbahaysigan ayaa la magac baxay The Pact of Steel. Sidaasina taariikhdu markay ku beegnayd 10kii bishii lixaad, dowladda Talyaaniga ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhana wadamada Faransiiska iyo Britain. Isla 14kii bishii lixaad, ciidamadii Jarmalka ayaa gudaha u galay caasimadda Faransiiska ee Paris. Waxaa isla waqtigaasi dalka Faransiiska laga dhisay dowlad cusub oo uu sameeyay Marshal Philippe Pétain. Marshaalkan oo ahaa halyeygii Faransiiska ee dagaalkii koowaad ee dunida ayaa isla 2 ayaamood kadib soo gelitaankii ciidanka Jarmalka gudaha u soo galeen caasimadda Faransiiska dalbaday heshiis xabad joojin ah. Waqtigan dalweynihii Faransiisku wuxuu u kala qaybsan yahay 2 qaybood oo kala ah: qayb hoos timaada ama ay ka taliyaan ciidankii militariga ah ee dalka Jarmalku, iyo qayb uu xukumo Marshaalkan dowladda cusub soo dhisay ee Pétain. Waqtigan hogaamiyihii mayalka adkaa ee Hitler wuxuu diiradda dagaalka u jeediyay dhinaca Britain, maadaama Britain ay ka go'nayd juqraafi ahaan inta kale ee qaaradda Yurub, waxayna taasi u fududeynaysay inay hesho istiraatiijiyad difaac oo wanaagsan. Si loogu gogol xaadho duulaan xoog leh, waxaa bilaabmay weerarkii la magac baxay Libaaxii Badda. Bishii sagaalaad ee isla sanadkaasi 1940, diyaaradihii dagaalka ee ciidanka Jarmalka ayaa duqeymo ka bilaabay dalweynaha Britain, waxayna duqeymahaasi socdeen ilaa bishii shanaad ee sanadkii 1941. Duqeymahan
oo dowladda Jarmalku ugu magac dartay The Blitz oo la micno ah Hilaaci, ayaa waxay xilliyada habeennimada weeraro la beegsanayeen gudaha caasimadda London iyo xarumaha wax soo saarka ee dalkaasi Britain, waxaana weeraradaasi sababsadeen dhimashada qaar badan oo ka mid ah shacab rayida iyo khasaare dhaqaale. Dhinaca hawada, ugu dambeyntii diyaaraddii Royal Air Force ee dalka Ingiriisku lahaa ayaa ka adkaatay diyaaraddii Luftwaffe ee ciidanka Jarmalku u isticmaalayay weerarada dhinaca cirka, sidaasina kaligii taliyihii Hitler wuxuu hakiyay qorshihiisii ahaa inuu qabsado dalweynaha Britain. Ciidanka Britain oo isticmaalaya awooddiisii ugu dambeysay ee dhinaca difaaca, Ra'iisul Wasaare Winston Churchill oo waqtigaasi hogaaminayay Britain ayaa gacan aad u weyn ka helay dhinaca dowladda Mareykanka iyagoo isticmaalayay heshiiskii Land-Lease Act oo ahaa sharci uu Koongareeska Mareykanku meel mariyay bilowgii sanadkii 1941. Sharcigan ayaa dhigaya dowladda Mareykanku inay hubka dagaalka amaahin karto ama ay ka kirayn karto cid walba oo ay u aragto inay muhiim u tahay amniga dalka Mareykanka. Hitler iyo Stalin qorshihii Barbarossa oo ahaa 1941 ilaa 1942. Bilowga sanadkii 1941, wadamada Romania iyo Bulgaria ayaa ku soo biiray isbahaysigii Jarmalku horkacayay ee la magac baxay The Axis. Isla bishii afraad ee sanadkaasi, ciidankii Jarmalka ee uu hogaaminayay Hitler waxa uu cagta mariyay wadamada Yugoslavia iyo Greek. Qabsashadan ciidanka Jarmalku qabsaday wadamada Balkaniska ayaa hordhac u ahayd qorshihii dhabta ahaa ee Hitler. Qorshahaasi oo ahaa sidii uu u qabsan lahaa Midowgii Sofiyeeti. Qabsashada dhulka baaxadda leh ee Midowga Sofiyeeti ayaa ahaa kan kaliya ee reerka uu ka soo jeedo Hitler ay ugu guuleysan lahaayeen qorshihiisii Lebensraum uu ugu magac daray, oo ahaa in dalka Jarmalka u dhashay ee uu bixiyay Aryanku ay helaan nolol aad ugu heer sarreysa tan dadka kale ee qaaradda iyo dunida inteeda kala degani ay haystaan. Qorshaha kale ee uu hogaamiyahan kaligii taliyaha ee Hitler uu dagaalka ka lahaa ayaa ahaa sidii uu dadka Jewska ama Yuhuudda uga dabargoyn lahaa wadamada uu ka taliyo ciidankiisu. Qorshayaasha xalka ugu dambeeya ayaa la soo bandhigay waqtigii weerarka Sofiyeetka, waxaana uu qorayay in 3 sano ee soo socota in ka badan 4 milyan oo Yuhuuda lagu xasuuqi doono xeryaha dhimashada ee laga sameeyay Poland oo Hitler ka talinayay markaasi. Taariikhdu markay ku beegnayd 22kii bishii 6aad 1941, Hitler ayaa dalbaday weerar ka dhana Midowga Sofiyeeti, waxaana weerarkan ugu magac daray qorshihii Barbarossa. Waqtigaasi, taangiyada iyo diyaaradaha Sofiyeetku waxay aad uga badnaayeen kuwa Jarmalka, laakiin tiknoolajiyadda duulista ee Ruushka ayaa inta badan ahayd mid duugowday. Saamaynta duulaanka lama filaanka ah ayaa ka caawisay ciidamadii Jarmalku inay 200 oo mayl u jirsadaan caasimadda Ruushka ee Moscow bartamihii bishii 7aad. Khilaafkii u dhaxeeyay Hitler iyo taliyayaashiisii ayaa hakiyay horusocodka tallaabadii taas xigtay siday u qaadi lahaayeen, waxaana sidaasi ku gaadheen bishii 10aad ee sanadka. Sidoo kale, duulimaadyadii iska caabinta ahaa ee ciidanka Sofiyeetka iyo cimiladii jiilaalka oo aad u sii qabowday ayaa saameeyay sidii uu ciidanka Jarmalku hore ugu sii socon lahaa dhulka Sofiyeetka. Intaasi waxaynu ku soo koobaynaa maanta qaybtii labaad ee dagaalkii labaad ee adduunka. Haddii aad channelkeena ku cusub tahay, fadlan subscribe si aad u hesho muuqaalada aan soo wadno. Haddii aad ka mid tahay asxaabteennii hore ee noo maadna, ha ilaawin sheerta, like-ta iyo qaybta commentiga nagula wadaagto wixii faalla iyo fariin ah. Mahadsanid.